wafdi ballaaran uu hogaaminayo boqorka beelaha daarood boqor burhaan boqor muuse boqor yuusuf oo ay weeriyeen qaar ka mid isimada deegaanada Puntland ayaa caawa lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaas oo la filayo in maalinta bariya ay ka qayb galaan aaska marxuum Garaad Abshir Saalax Maxamed oo lagu aasi doono deegaanka Bilcad iyadoona boqorka iyo wafdigiisa laga hortagay meel ka baxsan magaalada Laascaanood waxaana ka qayb qaadanayay soo dhaweynta boqorka isimada waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waxaana goobta ku sugnaa wakiil Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Maxamuud Guhaad Garaad Cabdisalaam Garaad Maxamed iyo sidoo kale Garaad Cabdilaahi Guuleed dhammaan ismadii ka hadashay goobta ayaa ku soo dhaweeyay magaalada Laascaanood waxaana kamid ah hadaladoodii ku soo dhawow gobolka Laascaanood waxaan wakiilkii Garaad Jaamac insha Allah jooga ismadii kale waxaan ku soo dhaweynaynaa farxad iyo barwaaqo iyo gobolkiini ma hagaag qalab noqonaysa insha Allah ta'ala سورسانا حاضرتان سودوينا بقر برهان بقر موسى وفد قبلنا وهجامينيو كقيب قليا آسكا أنا دروبته قراد أبشر صالح كدي عدوان تبلعات لأنه هالكن وفد قبل سودوينا عاوة قبلنا يسودوادا وادوكيني بقر وفد قبلنا وهجامينيو وصعد تعسيدي يدروبتي قراد أبشر صالح وعن لنا سود وهذا ويدكو سود وين هذا ويدكو مهدعين سفر كلير عشان مرتين إلى هذا كتسال سيو الله نحاول حريستو لمشهد قراد أبشر نوصلنا التاسو مالكم حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كان سود وين تويدي كما هذا قراد كان الله ونحريستو سواء إن شاء الله وأنا نكواجه بعد ما تنتهي. soo dhaweynaa gobolkiina baan ku soo dhaweynaa boqor waxaana waxaan nasiib wanaagno waa markii ugu horeysay ee uu yimaado gobolka Sool ku soo dhawow boqor waa gobolkaagii waxaad u timid dadkaagii qalbi furan baan ku soo dhaweynaa gabagabadii boqor burhaan boqor muuse boqor yuusuf ayaa uga mahad celiyay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen iyadoo waliba ay tahay xilli habeenimo wuxuuna boqorku sheegay in marka laga soo laabto aaska marxuum Garaad Abshir Saalax oo ku soo laaban doono magaalada Laascaanood doona gabagabadii boqorka loo galbiyay guriga uu Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ka degan yahay magaalada Laascaanood halkaas oo casharaf loogu sameeyay boqorka iyo marti sharaftii la socotay marka hore garaadada iyo wakiilka garaadka iyo khiyaarta kale cuqaasha dhalinyarada saxaafadda dhamaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin soo dhaweynta qalbiga wanaagsan ehelnimada iyo sida wanaagsan oo aad waqtigan habeenimada oo sagaalkii habeenimo ay dhaaftay sida noogu soo dhaweyseen meeshan aynu joogno runtii waxaan kala gudaaranaynaa soo daahidii aan soo yara daahnay waxay ahayd inaan waqti fiican oo iftiinan soo gaarno si aanu dadka iyo dalka iyo kulliga u aragno insha Allah taawuna way wada joogaynaa soo noqodka markaan aaska ka soo noqono baynu si fiican soo arki doonaa Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascaanood